Mudaharaadyo laga soo horjeedo falkii ciidamada Israa'iil ee xalay ku kaceen oo xasuuq ba'an ay u geysteen shacab ku sugnaa isbitaal ku yaala Gaza. Ciidamada ammaanka maamulka Falastiin ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa iyo bambaanooyinka gacanta laga tuuro si ay u kala diraan dibadbaxayaasha Ramallah. Boqolaal mudaharaadyaal ayaa isugu soo baxay dhulka la haysto ee daanta galbeed kadib markii mas'uuliyiinta Falastiiniyiintu ay sheegeen in weerar cirka Israa'iil ay ku dishay dad kor u dhaafaya ilaa 500 oo qof. Weerarkii lagu qaaday isbitaalka Al Ahli Al Arab ee Gaza oo ay saraakiishu sheegeen in lagu dilay dad gaaraya 500 oo qof ayaa ah dhacdadii ugu dhimashada badnayd ee hal mar ka dhacda Gaza tan ilaa markii Israa'iil ay bilowday ololaha bahalnimada oo xagga cirka ay ku qaadaysay dhulka Falastiiniyiinta kadib markii ay Xamaas dhowaan weeraro ku qaaday dhulka la haysto ee Falastiiniyiinta. Militariga Israa'iil ayaa beeniyay mas'uuliyadda weerarka cirka waxaana ay sheegeen in uu ka dhashay gantaal fashilmay oo ay rideen kooxda hubeysan ee Falastiiniyiinta. Al Jazeera waxay awoodi weyday in ay si madax bannaan u xaqiijiso weerarka. Magaalada Ramallah, ciidamada ammaanka maamulka Falastiiniyiinta ayaa ku tuuray dadka sunta dadka ka ilmeysiisa iyo bambaanooyin gacanta laga tuuro dibadbaxayaasha ay u adeegsadeen. Dadku waxay rabaan inay dhacdo dowladda Maxamuud Cabbaas. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqay in ay taageersan yihiin ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta ee maamula Gaza. Goobjoogeyaal ayaa sheegay in mudaharaadyada ay ka dhaceen magaalooyin kale ee ku yaala daanta galbeed ay ka mid yihiin magaalada Nablus, Tubas iyo Jenin oo ah magaalo ku taala waqooyiga, taasi oo ahayd bartilmaameedka howlgallada ballaaran ee militariga Israa'iil horaantii sanadkan. Mudaharaadyada daanta galbeed ayaa muujinaya carada Falastiiniyiinta muddada dheer ka soo horjeedeen madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas Abu Maazin, kaasi oo ciidamadiisa ay muddo dheer la kulmayeen dhaleecayn la xiriira isku xirka Israa'iil ee dhanka amniga dhulka. Cabbaas ayaa sidoo kale baajiyay kulan la qorsheeyay inuu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaasi oo lagu wado in Arbacada maanta gaaro Israa'iil si uu taageero ugu muujiyo Israa'iil kadib markii Xamaas ay weerar ba'an 7 bishan ay ku qaadeen Israa'iil ayna ku dileen dad gaaraya 1400 sida uu sheegay maamulka Israa'iil. Tan iyo weerarkii Xamaas, Israa'iil waxay bilowday inay xasuuqdo shacabka Falastiiniyiinta, waxaana la sheegay in weerar cirka ay ku dileen ugu yaraan ilaa 4,000 oo Falastiiniyiin ah, waxaana la sheegay in dhaawacyo ay u geysteen ilaa 10,000 oo Falastiiniyiin ah sida warbaahinta ay sheegeen. Xiisadda ayaa ka sii dartay daanta galbeed ee la haysto halkaasi oo ciidamada Israa'iil ay ku dileen daraasiin Falastiiniyiin ayna xireen in ka badan 700 oo qof. Wasaaradda caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in 61 qof ay ku dhinteen 250 kalena ay ku dhaawacmeen daanta galbeed ee la haysto tan ilaa 7 Oktoobar.